buuggan mayal tafatiray tacab weyn gashaday igula dadaalay in badan igula dul dhintay oo aan hubo caawa hadduu joogi lahaana xafladdan quruxda badan inay ka sii qurux badnaan lahayd waa nin halgamaaya walaala ahayn runsheeg ahaa qoraa ahaa waa siciid maxamuud gahayr allah u naxariisto u duceeya faatixada u mara faatixada loo maro sidoo kale waxaan idin leeyahay faatixada waxaad u martaan inanka walaalka ahayn ee ninka askarigii sida gacan khatara ku dilay mustafa ibraahin aadan waxaan halkan uga ducaynayaa idinkuna aan jecelahay inaad uga ducaysaan ibraahim sheekh cabdiraxmaan sheekh bashiir oo xanuun xun oo wadnuu hayo in ilaahay caafiyo oo qaliil ku galaya dhowaan qadar intaa marka laga tago aan ku soo noqdo nuxurka buugga mayal iyo nuxurkiisa waxba kaga noqon maayo laba sababood dartood waa tan hore qoraas ciid beegsi iyo waxa aad ugu dheeraaday xildhibaan maydhane waa tan labaade madashu way igala weyn tahay madal nuxurka buugga oo keliya lagaga hadlo waxa ay tahay in lagu badbaadiyo masiirka ummadda reer somalilan ee khatarta ku jira maadaama oo aan caawa loo kala maqnayn anigu culayska aan soo maray arrintaas ayaan soo maray qoraalka buuggan arrintaas baa igu sababtay caawana arrintii sidii meel loogu hubsan lahaa ayaan hadalkayga ku gaabsanaya somalilan 6 sannadood waxa ay ku jirtaa xaalad aad u halis badan inkastoo xanuunkoodu uu ka horreeyey wakhtigaa sida aan buugga ku xusay dadka qaarkood waxa ay u arkaan xaalad kursi iyo doorasho keliya ku saabsan waa laga yaabaa taasi inay tahay waxa inoo muuqdaa eelkuse waa ka fog yahay hal qof ayaa isku dayaya inuu keligii dalka yeesho sida uu doono ka yeelo dalka sharcigiisii wuu burburiyey xildhibaano xasaalaad leh ayuu xabsiga dhigay waxba lagama qaban heshiiskii khaatumo ayuu ka baxay waxbana lagama qaban doorashadii dalka ayuu siyaasadeeyey waxba lagama qaban shacab si salimi ah u mudaharaadaya ayuu laayey waxba lagama qaban madaxdii mucaaridka ayuu xabsiyada dhigay waxba lagama qaban madaxdii dhaqanka beelaha ayuu qaarkood xabsiga dhigay waxba lagama qaban qaarkood sandalado ayuu ku dul samaystay waxba lagama qaban beelo dhan oo reer somalilan ayuu guryahoodii kula dagaalamay oo laascaanood barakiciyey waxba lagama qaban ciidankii qaranka ayuu 8 bilood guur ku xareeyey waxba lagama qaban ciidankii qaranka ayaa ku baaba'ay kooja 25 August 2023 ilaa maanta waxba la iskama weydiin dalka maadadiisa gaajo ayay dhammaanaysaa oo dhaqaalihii dalku uu baaba'ay ilaa maanta waxa laga barayaa waa dalka doorasho ka qabo marka ay sidaa tahay anigu cid walba la hadli maayo caawa odayaashii dalka u soo halgamay dhaqanka beelaha somalilan ee halkan fadhiya ganacsatada dalka siyaasiyiinta mucaaridka iyo kuwa madaxa bannaan iyo culimada su'aal kaliya ayuun baa weydiinaya waa maxay sababta aad dalkiinnan rogmanaya ummaddiinnan baaba'aysa ee silcaysa gaajada warwarka magaxxumida isu raaceen iyo dalkiinnan sii burburaya ugu taawanaysaan hal qof ma ii sheegi kartaan sababta loo hoganayo ee loo bereeri kari laayahay gabagabada hadalkan waxaan u joognaa halkan waxaan u joognaa oo shacabka intaas leegi uu caawa halkan u fadhiyaa waa inuu dhegaysanayo go'aankiinna iyo badheedhihiinna oo cad oo aan muhman lahayn su-aasha labaad ee aan idin weydiinayaa odayaashaan xagga hore ku soo xusay waxa weeyaan maxaa xal ah hadduu doorasho diido inuu qabto madaxweynaha imka dalka talada dalka haya maxaa ka yeelaysaan maxaa samaynaysaan dhaqan waa joogtaan siyaasiyiin waa joogtaan mujaahidiin waa joogtaan oo cali guray baa jooga maxaa laga yeelayaa
سؤاشا وين عاوة هل كان حل هذا وهشان أنا سؤاشا فرينتا أنا كجت جواب يا أوتم بيسوي حويان ما دام على بور هاي إن أنا كنت ذالو ضد مدأة ضد ولا لا وأنا لك الدلين أو مدأة إن أنا أرين كيك يحق كيك دعسان إنه دورش أنا أي قصب تاي عندنا حق ولا هاي باش waxaan ku soo gabagabeynayaa waqtigu waa gaaban yahay dadkuna way badan yihiin odayaasha intii hadalka lahayd waa hadhay sidaas ka aad iyo aad buu mahadsan yahay awaan cabdiraxmaan abees qoraaga buugga mayal oo isaga iyo buuggiisuba ay liintii xabsiyada soo arkeen